waan salaamay walaalayaal waan soo dhaweynayaa mar kale casharadii aynu ereyga Ilaahay ka baranaynay kitaabka quduuska waxaynu soo madnay dhowrkii cashare hore aynu soo baranay casharo ku saabsan Nabi Ibrahim waxaynu soo baranay sidii iyo sababtii uu Ilaahay ugu yeeray Ibrahim waxaynu soo baranay Ibrahim oo loogu yeeray saaxiibkii Ilaahay waxaynu soo baranay qisadii ku saabsanayd Ibrahim iyo Ismaaciil ayaynu soo baranay maantana waxaynu baranaynaa cashar ku saabsan halaagii Sodom iyo Gomora iyo dhalashadii Isxaaq ama Nabi Isxaaq sida ay dadku u yaqaaneen duruusteena waxaynu ku soo baranaynay sidoo Ilaahay ugu ballan qaaday Ibrahim inuu noqdo aabe quruun cusub oo uu Ilaahay doortay oo ay ka dhalan doonaan nebiyadii uu Ilaahay bini'aadamka u soo diray oo dhan iyo gaar ahaan badbaadiyaha laakiinse ilaa iyo hadda sida aynu qisada ku soo aragnay inkastoo uu wiil ugu ballan qaaday uu ballankiisa la dhigan doono waxayna arkaynaa inaanay weli wiilkii ballanqaadku uusan dhalan oo ay Ibrahim iyo xaaskiisa Saara ay aad iyo aad u da'weynaayeen waqtiga maanta waxaynu arki doonaa qiso cajiiba oo uu ereyga Ilaahay inoogu qoray ereygiisa qisadoona oo in Ibrahim ay u yimaadeen 3 nin oo booqasho ugu yimaadeen 3 nin laakiinse 3dani nin ma ahayn bini aadan laba ka mid ah waxay ahaayeen malaa'igo ka saddexaadna wuxuu ahaa Rabbiga ama Ilaahay laftiisa oo qaab bini aadan ugu yimi Ibrahim sida Bible-ku qorayo dadka qaarkii ayaa ka dooda Ilaahay inuu isku keentusi karin qaab bini aadan laakiin ereyga Ilaahay wuxuu inoo sheegayaa in Ilaahay wax kasta uu awood weyn yahay wax kastana uu awoodo hal mid buusan Ilaahay samayn oo aanu dabeecadiisa ka soo horjeeda oo uusan Ilaahay samayn taana waxa weeye inuu Ilaahay aanu dambi ama xaq darro samayn waayo Ilaahay waa quduus laakiin ujeedada Ilaahay haday tahay inuu isagu bini aadanimo isagoo ugu muuqdo qof uu sameynaya taas Ilaahay kuma adka taas Ilaahay dambi kuma aha maanta waxaynu akhriyeynaa Tawreedda kitaabka bilowgii cutubka 8aad aayadaha 1 ilaa 33 oo aynu ka akhriyeynaa qisadan oo Rabbiga u muuqday isaga oo ag jooga dhirtii Mamre Ibrahim buu muuqanayaa isagoo iridda teendada fadhiya guriga soo hortiisa isagoo fadhiya markii maalinta ugu kululayd hadhkii oo kale oo indhihiisii buu kor u taagay oo eegay oo wuxuu arkay 3 nin oo hortiisa taagan oo kolkuu arkay ayuu ka orday iriddii teendada inuu ka hortago iyagii kolkaasuu dhulka ku sujuuday oo wuxuu yiri sayidkiigiiyo haddaad raali iga tahay hay dhaafin anigoo adoonkaaga biyo yar halaydin keeno oo gacmo maydha oo geedka hoostiisa ku nasta oo waxaan idin keeni doonaa waxoogaa cunto ee raaxaysta waayo waxaad u timaadeen adoonkiina markaas kadib waa tegi doontaan oo waxay ku yiraahdeen yeel sidaa tidhi Ibraahimna dhaqsuu u galay teendadii oo Saara u tagay oo wuxuu ku yiri 3 koombo oo bur degdeg u diyaari oo cajiin oo kibis ka samee oo Ibrahim xagga lo'dii buu ku orday oo wuxuu soo kaxeeyay dibi yar oo dhayla oo wanaagsan oo wuxuu u dhiibay nin dhalinyaro oo isaguna dhaqsuu u diyaariyay kolkaasuu u qaaday subag iyo caano iyo dibigii uu diyaariyay oo hortoodu dhigay oo isna dhinacoodu istaagay geedkii hoostiisii iyana way cuneen oo waxay ku yiraahdeen meeday bilcantaadii Saara ama xaaskaagii Saara markaasuu ku yiri waa taa teendaday ku jirtaa wuxuuna ku yiri hubaal waan ku soo noqon doonaa markii xilligu soo wareego raggii baa kule oo bal ogow naagtaada Saara wiil bay dhali doontaaye Saarana way maqashay iyadoo joogta iridii teendada oo ka dambeysay isaga haddaba Ibrahim iyo Saara way da'weynaayeen oo gabow bayna la dhaceen caadadii naaguhuna Saara way ka joogsatay Saarana qalbigay ka qosashay iyadoo leh
ما أنيقو جوابي بان فرحت إلي دونا يدو سيد كيجونا جوابي والرب جونا وحو إبراهيم كويري سارة ما حي أقص شيء إلهي قلبي يدو ضال على يدو له runtii ma ilmaan dhali doonaa anoo gaboobay ma wax rabbiga ku adag baa jira waqtigii la ballamay baan kugu soo noqon doonaa markii xilligu soo wareego sanadka dib oo saara wiil bay dhali doontaa oo markaasaa saara dafirtay oo tiri ma aan qostin maxaa yeelay way cabsatay oo isna wuxuu ku yidhi maya laakiin waad qosashay waxaanu sii wadaynaa aayadda 16aad nimankiina halkaas bay ka kaceen oo waxay u jeesteen xagga Sodom إبراهيم نو راعي إسقو سقوتيه يجا رب يقول وحو يري ميان إبراهيم كقرنيا وحن سمينيو رب يقول وحو كيري قيلدا صدم إبراهيم بوشيجيا قيلدا صدم يو جمرة وقضتي دم بيقولون آد بوينادي هدبا وان تجدونا أو وحن أركدونا إني وذا السمايين سيدي قيلدو يسوع قادي إيه إنكله سيدي دم بيقول يسوع قادي إيه إنكله haddaanay wada sameeyna waan gaan doonaa oo nimankii halkaas ay ka noqdeen oo waxay tageen ama u leexdeen xagga Sodom laakiin se Ibraahim wali wuxuu hortaagnaa rabbiga oo Ibraahim baa u dhawaaday oo yiri miyaad kuwa xaqa la baabiinaysaa kuwa sharka Ibraahim wuxuu gartay in Ilaahay halaagayo Sodom iyo Gomora marka wuxuu u doodayaa kuwa xaqa ee Sodom iyo Gomora ku nool oo Ibraahim baa u dhawaaday oo ku yiri miyaad kuwa xaqa la baabiinaysaa kuwa shar kale mindhaa waxa magaalada jooga konton xaqa de miyaad baabiinaysaa meesha oo aadan ugu tudhaynin kontonka xaqa ee jooga aawadood yaanay noqon inaad saad samayso inaad kuwa xaqa la dishid kuwa shar kale fala oo sidaas kuwa xaqa ay kula mid noqdaan kuwa sharka fala taas yaanay noqon dunida oo dhan xaakinkeedu miyuusan xaq samayn doonin markaasaa rabbigu yiri haddaan Sodom ka helo konton qof oo xaqa magaalada jooga dee markaas meeshaas oo dhan waxaan ugu turi doonaa iyaga daraadood oo Ibraahim uu jawaabay oo ku yiri bal eeg waxaan isu diray inaan sayidka la hadlo anoo ciid iyo dambasa mindhaa kontonka xaqa shan baa ka dhiman miyaad magaalada oo dhan u baabi'inaysaa hadday shanu ka dhiman yihiin markaasuu ku yidhi baabi'in maayo haddaan meesha 45 ka helo markaasuu mar kale la hadlay oo yidhi Ibraahim baa la hadlay Ilaahay mar kale mindhaa waxaa halkaas laga heli 40 markaasuu ku yidhi 40ka aawadood ayaanan u baabi'inayn markaasuu ku yidhi Ibraahim baa mar kale ku oranaya sayidku yuusan caroon waan la hadlayaa Ilaahay baan la hadlayaa mindhaa waxaa halkaas laga heli doonaa Sodom markaasuu ku yidhi baabi'in maayo haddaan Sodom halkaas ka helo markaasuu ku yidhi Ibraahim baa mar kale Ilaahay la hadlaya bal eeg waxaan isu diray inaan sayidka la hadlo mindhaa waxaa halkaas laga heli 20 markaasuu Ilaahay ku yidhi 20ka daraadood yaanan u baabi'inayn oo wuxuu yidhi sayidku yuusan caroon Ibraahim waa markii ugu dambeysay oo wali waan la hadlayaa waase markan oo kaliya mindhaa waxaa halkaas laga heli 10 wuxuuna Ilaahay ugu jawaabay 10ka daraadood yaanan u baabi'inayn rabbiguna wuu iska tegay markaasuu markuu Ibraahim la dhameeyay hadalkii Ibraahimna meeshiisii buu ku noqday marka walaalayaal halkan waxaynu ku arkaynaa sheekh qiso aad iyo aad cajiib u ah waxaynu arkaynaa naxariista Ilaahay waxaynu arkaynaa oo kale sida uu Ilaahay kuwa xaqa kuwa shar kale hatta marar badan ugu dulqaato kuwa xaqa yar inuu kuwa badan oo shara u dulqaato si uu bal iyagana u siiyo chance ama fursad ay ku toobad keenaan qisadan waxay ku tusaysaa sida uu Ilaahay bini aadanka u dhageysto inaguna sida Ibraahim oo kale ayaynu Ilaahay ugu tegi karnaa oo hortiisa ugu sujuudi karnaa oo baryooyinkeena u soo hordhigi karnaa oo uu inoo maqli karaa marka waxaynu qisada sii akhrino arkaynaa sidii Sodom iyo Gomora uu Ilaahay u halaagay waxaynu sii akhrinaynaa cutubka 19aad aayadaha 1 ilaa 5
oo labadii malaa'igood baa Sodom fiidkii yimi luudna wuxuu fadhiyey iridda Sodom oo markuu luud iyagii arkay ayuu u kacay inuu ka hortago wuuna u sujuuday oo wejigiisu dhulka saaray oo wuxuu ku yiri baleega sayidadaydiiyow soo leexda waan idin barayaay oo gala guriga adoonkiina oo caawa oo dhan jooga oo gacma maydha aroortii baana kici doontaan oo iska tegi doontaana oo waxay ku yiraahdeen maya laakiin jidkaanu joogaynaa caawa oo dhan aad buuna u baryay xaggiisayna u soo leexdeen oo gurigiisii bay galeen diyaafad buuna u sameeyey kibis aan khamiir lahayn buu u dubay wayna cuneen laakiinse intaanay jiibsan ka hor waxaa gurigii hareereeyey nimankii magaalada oo ahaa nimankii Sodom yar iyo weynba oo dadkii oo dhan ayaa ka yimi meel kastaba oo luud bay u yeedheen oo waxay ku yiraahdeen meeya nimankii caawa ku yimid dibadda noogu soo bixi iyaga aanu fuulne ama aanu tagne marka waxaynu arkaynaa walaalayaal dambi badnaantii magaaladii Sodom iyo Gomora cashar hore waxaynu ku soo baranay Ibrahim inuu ahaa adeer u ahaa luud inuu adeer u ahaa markay dhulkii Kancaan yimaadeen ee ay u soo guureen waxaynu soo baranay inuu Ibrahim yiri maadaama xoolaheeni bateen luudow dalka dooro luud wuxuu doortay dalkii barwaaqada ahaa ee dooxooyinka ahaa Ibrahimna wuxuu u reebay dhulkii qalala ee adkaa marka wuxuu yiri adiguna meeshaada u gur aniguna xaggaygaan u guuraya laakiin se dhulka barwaaqada ee luud u guuray waxa ku yaalay labadii magaalo ee loo oran jiray Sodom iyo Gomora labadaas oo magaalo oo aynu sidaynu garanayno ay ku noolaayeen Soomaalidu si yaadaan dadka la yiraahdo qoomuluudka ama khaniisiinta oo khaniisnimaduna sida Bible-ku qorayo meelo badan ka qorayo waa dambi aad iyo aad u xun oo Ilaahay karaahaysto oo uu Ilaahay ciqaabayo sida aynu tusaalahan Sodom iyo Gomora ay ina tusayaan waadaynu sii akhrino kitaabka bilowga cutubka 19 aayadaha 6 ilaa 17 waxaynu ku arkaynaa sidii uu Ilaahay u halaagay Sodom iyo Gomora oo luudna dibaddu ugu baxay nimankii lahaa war noo soo saar malaa'igii bini'aadanka iska soo dhigay ee aanu fuulne ayuu luud dibadda ugu baxay oo luudna dibaddu ugu baxay iyagoo albaabka jooga albaabkiina wuu xidhay oo wuxuu ku yiri waan idin barayaa walaalahayow sidaas xun ha samaynina oo bal eega waxaan leeyahay laba gabdhood oo aan weli nin u tegin haddaba waan idin barayaa aan idin soo bixiyo iyaga oo saad doontaan u gala laakiin nimankan wax xun ha ku samaynina maxaa yeelay waxay hoos galeen dugsiga saqafkayga ama anigay magangalyo yihiin buu ka wadaa waxayna yiraahdeen dib u joogso oo waxay kaloo yiraahdeen ninkan socdaal buu ku yimi oo wuxuu doonayaa inuu annaga xaakin noo noqdo yani waxay ka wadaan ninkani isaga labtiisa ayaa dhulka ku cusub oo magan ku ah hadda wuxuu doonayaa inuu annaga noo taliyo haatan wax daran baanu ku samayn intaanu iyaga ku samayn lahayn oo si ka sii daran markaasay si xun ninkii luud ahaa u riixeen waxayna ugu soo dhawaadeen inay albaabka jebiyaan laakiinse nimankii baa gacmahoodii soo bixiyay oo luud bay gurigii soo gashadeen nimankii malaa'igahii nimanka iska soo dhigay ayaa luud soo geliyay gurigii markaasay albaabkii xidheen wayna indha tireen nimankii guriga albaabkiisa joogay yar iyo weynba oo saas daraaddeed way ka daaleen inay albaabkii helaan nimankii soo jebinayay rabay inay nimankan faraxumeeyaan ayaa malaa'igtii indha tirtay oo nimankii waxay luud ku yiraahdeen intan mooyaane wax kale ma leedahay meeshan intan familiga intan kula joogta maahane dad kale ma leedahay magaalada ma ku leedahay wiil aad sodog u tahay iyo wiilashaada iyo gabdhahaaga iyo ku alla kii magaalada aad ku leedahay kala soo bax meeshan waayo meeshan waanu baabiin doonaa ama waanu halaagi doonaa maxaa yeelay qayladoodii ama dambigoodii baa rabbiga hortiisa aad ugu badatay oo rabbigu wuxuu noo soo diray inaanu baabiino markaasuu luud dibadda u baxay oo wuxuu la hadlay wiilashuu sodoga u ahaa oo gabdhihiisa qabay oo wuxuu ku yiri kaca oo ka soo baxa meeshan waayo rabbigu magaalada wuu baabiin doonaa laakiin
wuxuu wiilashuu sadogo ahaa ula ekaaday sidii mid ciyaaraya oo markii waagi beriyay ayaa malaa'igihii luud dadajiyeen iyagoo leh kac oo ka tag oo la tag naagtaada iyo labadaada gabdhood oo halkan jooga waaba intaasoo aad dembiga magaalada ku baabaadaane halaaga ku dhacaya magaalada inaad idinkuna ku darsataan waqtigii waa la gaaray ka baxa ayay leeyihiin laakiin markuu raagay ayay nimankii gacantiisa qabteen iyo gacantii naagtiisa iyo gacantii labadiisii gabdhood rabbiguna waa u naxariistay isaga iyana way soo bixiyeen oo waxay geeyeen magaaladii dibaddeeda oo markay dibadda u soo bixiyeen ayuu yidhi naftaada la baxso ayaa lagu yidhi malaa'igihii baa ku odhanaya naftaada la baxso gadaashaadana ha eegin bannaanka oo dhanna ha joogsan ee buurta u baxso waaba intaasoo aad baaba'daane marka walaalayaal waxaynu arkaynaa in ay dadkii magaaladu ay ahaayeen dad aad iyo aad u dimi badan waxaynu arkaynaa in xataa 10kii uu ibraahim u sheegay ilaahay ka baryay aanu joogin ugu dambeyntii waxaa laga helay magaaladii 3 qof oo xaqa sidaynu arki doono waa luud iyo labadiisii gabdhood iyo xaaskiisii aayadaha aynu arki doono waxaynu arki doonaa xataa xaaskiisa inaanay xaq ahayn ayaynu arki doonaa haddaynu sii akhrino kitaabka bilowgeeya cutubka 19 aayadaha 24 ilaa 29 waxaa ku qoran markaasaa rabbigu wuxuu Sodom iyo Gomorra ku soo daadiyey baaruud iyo dab kaga yimi xagga rabbiga oo samada ka soo daatay wuuna rogay magaalooyinkaas iyo bannaankii oo dhan oo dadkii deganaa magaalooyinkaas oo dhan iyo wixii dhulka ka soo baxay oo dhan laakiinse naagtiisii Luud oo daba socotay ayaa dib u eegtay waxayna noqotay tiir cusba ibraahim weli wuu ka fakarayay Luud iyo Sodom iyo Gomorra iyo magaalada la rogay weli wuu ka fakarayay inkastoo meel kala deganaa ibraahimna aroortii hore ayuu u kacay meeshii uu rabbigu ku hor istaagay meeshii uu rabbiga kula hadlay oo wuxuu eegay xagga Sodom iyo Gomorra oo dhulkii bannaanka ahaa oo dhan wuuna fiiriyay oo bal eeg qiiqii dhulka ayaa kor baxay sidii qiiqa foornada oo kale oo waxay noqotay markii ilaah baabiyey magaalooyinkii bannaanka in ilaah xasuustay ibraahim luudna rogidda wuu ka bixiyey markuu rogay magaalooyinkii luud dhex deganaa ilaahay luud wuu ka badbaadiyey iyo labadiisii gabdhood xaaskiisii dib u eegtayna iyaduna waxay noqotay Bible-ka waxa ku qoran waxay noqotay tiir cusba dembiga markaynu ka tagno waa inaynu si buuxda oo kama dambaysa uga tagnaa haddaynu weli dembigiisii rabno waxa inagu dhacaya halaag ayaa casharkan aynu ka baranaynaa marka walaalayaal waxaynu arkaynaa aad inay qisadan u tahay qiso aad iyo aad murugo u leh ilaahay wuxuu xukumay magaalooyinka Sodom iyo Gomorra isagoo ku soo daayay dab iyo baaruud oo samada kaga timi ilaa iyo hadda magaalooyinka Sodom iyo Gomorra waa meesha ay ku yaalin waa la yaqaanaa oo waxay ka hooseeyaan badda loo yaqaano badda dhimatay ama Dead Sea ee ku taala Falastiin ama Israa'iil walaalayaal waxaynu arkaynaa in uu ilaahay ay dhab ka tahay marka uu leeyahay dembiga waan xukumaya oo uu dembiga xukumayo waqtiga dad badan baa isiraahda ilaahay goormu dembiga xukumaya sawtan ay bini aadanka adduunka ka dhacayaan wax kasta laakiin ilaahay waqtigiisa ayuu leeyahay laakiinse ballantiisa marna kama gaabinayo inuu maalin maalmaha kamida uu dembiga xukumayo haddaynu ereyga ilaahay sii wadno waxaynu sii akhriyeynaa qisada ku saabsan dhalashadii Isxaaq oo aynu ka akhrino Towreedda kitaabka bilowga cutubka 22 aayadaha 1 ilaa 7 oo oranaya oo rabbigu Saaraa uu soo booqday ama uu xasuustay sidii uu yiri oo rabbigu wuxuu Saaraa u yeelay siduu ku hadlay oo Saara way uurasatay oo Ibraahim wiil bay u dhashay isagoo da'weyn waxayna ahayd waqtigii ilaahay kala hadlay isaga oo Ibraahim wuxuu wiilkiisii u dhashay oo Saara u dhashay isaga u bixiyay Isxaaq oo Ibraahim baa guday wiilkiisii Isxaaq markuu 8 maalmood jiray
sidii ilaah ku amray isaga oo ibraahim wuxuu jiray 100 sanadood markii wiilkiisii isaaq u dhashay isaga saarana waxay tidhi ilaah baa iga qosliyay qof kasta oo maqlaana waa ila qosli doonaa oo waxay tidhi yaa ibraahim ku odhan lahaa saara caruur bay nuujin doontaa waayo wiil baan u dhalay isaga oo da weyn ah marka waxaan arkaynaa inuu ilaahay fuliyay ballanqaadkiisii uu muddo aad iyo aad u sii horeysay u galay ibraahim oo saara tiima dhalaysta ahay loogu yeeri jiray ayaa ilaahay isla sidii uu iyada ugu ballanqaaday xilligii uu u ballanqaaday wiil u dhashay wiilkaas oo la odhan jiray isxaaq kaas oo macnihiisu magaciisu yahay farxad ama qosol laakiinse waxaynu arkaynaa walaalayaal inuusan qof kasta ku farxin ballantii ilaahay uu u oofiyey ibraahim iyo saara haddaynu sii akhrino bilowgii cutubka 22aad aayadaha 8 iyo 14 waxaynu ka akhrinaynaa sidii aanay haagaar iyo ismaaciil ugu farxin dhalashadii isxaaq waxaa ku qoran aayadahaas wiilkiina wuu koray waxa weeye isxaaqe naaskiina waa laga guriyey ibraahimna diyaafad weyn buu u sameeyey maalintii isxaaq naaska laga guriyey saarana waxay aragtay wiilkii ay haagaar tii masriyadda ahayd ibraahim u dhashay oo ku ciyaaraya wiilkeedii sidaa daraaddeed waxay ibraahim ku tidhi eri addoontan iyo wiilkeedaba maxaa yeelay wiilka addoontanu wax la dhaxli maayo wiilkayga isxaaqa waxaasuna ibraahim aad bay ula xumaadeen xagga wiilkiisa ilaahna wuxuu ibraahim ku yidhi yaanay kula xumaan wiilka dartiis iyo naagta addoontaa toonna wax alla wixii saaraa kugu tidhaahdo hadalkeeda maqal waayo farcankaaga isxaaq baa loogu yeeri doonaa wiilkan doontana waxaan ka dhigi doonaa quruun waayo isna waa farcankaaga ibraahimna aroortii hore u kacay wuxuuna qaaday cunto iyo sibraar biyo ah oo haagaar buu siiyey intuu garbaha u saaray wiilkiina wuu siiyey markaasuu eriyey wayna iska tagtay oo ku wareegtay cidladii biirshabac marka walaalayaal waxaynu arkaynaa in ibraahim ay aad iyo aad murugo uga ahayd inuu wiilkii u dhalay ismaaciil uu iska diro laakiinse ilaahay ayaa raalli ka ahaa waayo ismaaciil muu ahayn ka ay ku socoto ballanta ilaahay quruunta uu ilaahay dhalin doono barakada u noqon doonta adduunka kama ay dhalin doonin ismaaciil ee uu badbaadiyuuna ka soo bixi doono laakiinse waxay ka dhalan doontay isxaaq waxaynu arkaynaa in ismaaciil iyo haagaar aanay ahayn qorshaha ilaahay aanay danka lahayn laakiinse waxay ahaayeen ballantii ilaahay kuma iman laakiinse waxay ku yimaadeen dadaalkii iyo qofnimo iyo degdegii saara iyo ibraahim haddaba ibraahim maxaa ismaaciilna ku dhacay waxaa aynu arkaynaa ismaaciil inuu u kacay cidladii beershabac halkaas oo uu isaguna sida baybalka ku qoran naag masriyada ku guursaday oo isagana ay quruun weyn uga soo baxday taas oo ah maanta inuu aragno in farcanka uu ismaaciil uu yahay carabta sida ku qoran kitaabka bilowga cutubka 16 aayadda 12 ilaa maantadan waxaynu ognahay in farcanka ismaaciil ay maxay leeyahay colaad ku yihiin farcanka isxaaq laakiinse waxaan ognahay ilaahay inuu jecel yahay quruumaha oo dhan ha noqoto carab iyo yuhuud iyo soomaali midkay rabtaba oo uu doonayo dhammaantood inay isaga aaminaan inay isaga adeecaan laakiinse ilaahay ayaa qorshihiisu markaa sidaa ahaa walaalayaal waqtigeedinu waan inoo dhammaaday waxaan rajaynayaa maanta inaynu casharkan ka baranay inuu ilaahay aamin yahay inuusan ilaawin ballantiisa ilaa waqti kasta ha ka soo wareegee waa sababtii uu ilaahay sodom iyo gomora u halaagay sidii uu ballan qaaday waa sababtii uu ilaahay iyagoo da'a ibraahim iyo saara ugu ballan qaaday inay wiil dhali doonaan oo uu si isla ballanqaadkiisii kaga dhabeeyey waa sababtii uu ilaahay
ibraahim uu sheegay inuu ismaaciil iska diro isaga oo ku taagan ballanqaadkiisii ku socday isxaaq ee ahaa inuu quruumaha oo dhan ku barakayn doono farcankas isxaaq isagoo meel marinaya waad maasantiin inaad maanta nala joogteen waxaan rajaynayaa inay noogu iman doontaan casharka ku xiga oo ku saabsan dhacdadii ugu muhiimsanayd noloshii ibraahim oo ahayd inuu ibraahim sadaqo u bixiyo ama alla bari ilaahay ku amray inuu alla bari ahaan u bixiyo wiilkiisii isxaaq